madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi hogaaminaya ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo iyadoo si diiran oo ka duwan sidii hore loogu soo dhaweeyay halkaasi wariyaha telefishinka Somali Cable Maxamed Qaasim Cali Waxar ayaa warkan inoo haya kadib safar shaqo oo qaatay ku dhawaad muddo bil ah oo madaxweynaha Jubbaland uu ku marayay dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Kenya ayuu madaxweynuhu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoona soo dhaweyntii ugu heerka sareysay tan iyo intii loo doortay xilka madaxtinimada Jubbaland lagu soo dhaweeyay madaxweynaha ayna ka qayb qaadanayeen madaxda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ciidamo gaar ah oo watay mootooyin iyo labisku cusub shacabka Jubbaland waxaana soo dhaweynta kadib warbaahinta la hadlay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ka warbixiyay safaradii uu ku maqnaa gaar ahaan booqashadii uu ku tagay dalka Itoobiya uuna kaga hadlay arrimaha Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ku booqday dalka Itoobiya iyo arrimaha dhanka khilaafaadka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalka Khaliijka sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ka hadlay booqashadii gurmadka qaran ee dhanka fatahaadaha Soomaaliya ee maalnimadii shalay ahayd ku tageen degmooyinka Baardheere Doolow iyo degmada Luuq ee gobolka Gado waxaana uu sheegay safarkayga dhaxdiisa waxa hadda aad loo hadalay oo ka mid ahayd booqashada hadda ugu dambeysay ee ku soo maray Itoobiya oo kale taas oo islaahay iyaduna wuxuu ahaa mid wajiga fiican sax ku ahayd waliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Itoobiya weydiisto ninkii Qalbi Dhagaxa Cabdikariin isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagina la kulmo kana wada hadallo insha Allah ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay kiiskiisuna uu si fiican ku soo dhammaan doona insha Allah taas aan shacabka rabo inaan u gudbiyo gurigeeda laga soo gala waxaa fiican in uu muuqato dawladdu mid systemka ka hooseeya iyada la shaqeynayna xaq dhowraya dadkeedana u gurmanayso xaq dhowraysa laakiin haddii uu muuqato in iyagu si kale loo isticmaalay dhibkeeda leedahay waan uga mahadcelinayaa qoladii shalay Baardheere iyo Luuq iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baan ugu mahadsantihiin waase shaqadii alla inoo qabateen waxaase ka sii fiicnayd idinka gurigeeda intaad ka soo gashaan maamulka iyo systemka meesha ka jiray iyo dhibaatada taala guddi baa la magacaabay madaxweynaha joogay guddoon baarlamaan baa jiray maadhow wasiir dowlaha madaxtooyadii la kala tagay inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxay ma aha inaan anagu Baardheere wax u diidanahay inaan Gado wax u diidanahay inaan Jubbada Hoose wax u diidanahay maya waxaas oo dhan waxaan rabnaa waxay tahay waxaa la qabanayaa inuu noqdo wax dadku kalsooni iyo wadajir iyo midnimo lagu ilaaliyo gobolkaani waa inta Khaliijka waa loo soo celiyay arrinta Khaliijka madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Farmaajo markii arrintaasi dhacaysay wuxuu joogay magaalada Kismaayo tan uu weydiiyay waxaan ku madaxweynuhu waagii Masar la yidhaah loo wada gooyo xiriirka maxamed siyaad marala macastay wuxuu yidhi maya u diiday anagu muddo dhexdhexaad baan ka nahay Masar in loo gooyana saxma carab oo dhanna way ugeysay waxaan ku dhahay arrintan qadar iyo barnaamijkan dhacaya waxaan u baahanahay inaan dhexdhexaad ka noqoto dhexdhexaad aan istaagno meel dhexaan istaagno aan ilaalinna inagu sharafteena wixii markaa weliba dhexdhexaadin aan ka geysan kara aan ka geysan soo wax saxa ma asalkeena aan ku talinaya taasay ahayd ma aana u jeedin in qadar la wada qabateeyo oo la go'doomiyo oo meel laga rido oo lala dagaalamo ama Imaaraad iyo Sacuudiya sida la yeelo midna ma ahan qorsho laakiin waxaa isweydiinay arrintaasi ma u socotaa sidii shalay qorsho u ahaa maya way kala xigtaysatay dowladda qadar jufaa lala noqday kuwii kalena waxaa la waa burca tuugaho sidan oo kale dhibaata ka dhacday aan miisaanka saarnaba war annagu Soomaali baa dagaalka Khaliijka in la soo xawilo carab hadday dagaalamaysa ku dagaalata dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidda iyadoo ay noqoto iyo darnimada iyo dowladnimada iyo midda la isku haystay dhibaatada laga geysan maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socdaya waa Imaaraad iyaga maanta inaga soo gaarasho Jubbaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab loo siiyey ama tababare ama dugsiyo dhisay ama waxtar geystay weli ma ana qadar foundation qola leeyahay wiil maalin laga tusay waxay taa dhaafsan ku baan
waxaan isleeyahay shay saxa maaha dhexdhexaadnimadii waa laga baxay arrinta khaliijka dawladdu dariiq saxa ma ku ah waxay ku dhaqmaysaa ama dib ha ugu noqoto waddadii ama hadday noqoto annagu aase Jubbaland iyo Soomaaliya waxtarkeeda maanta imaaraadka nooga wax maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo.